madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Asiisi ayaa sheegay inuusan aqbali doonin in la dhaawaco nisbada biyaha Masar ay ka hesho webiga Niilka mar uu ka hadlayay mashruuca biyo xireenka dowladda Itoobiya. Asiisi ayaa afka ku balaariyay inuu madaxda dowladaha Suudaan iyo Itoobiya uu kala hadlay saddex arrimood oo ay ku jirto inaan la taaban karin nisbada ama xaddiga Masar ay ka hesho qulqulka webiga Niilka. madaxweynaha dalka Masar ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu furayay horumarinta kalluunka ee gobolka Kafr Sheekh. Cabdulfataax Asiisi ayaa farta ku fiiqay in Masar ay fahmayso baahida dhinaca horumarka ee dalka Itoobiya, laakiin waxa uu si adag uga digay in la taabto nisbada biyaha Masar ay ka hesho qulqulka webiga Niilka. لا مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام وانا بطمن. Cabdulfataax Asiisi waxa uu yiri biyaha Masar waa mid aan hadal ka taagnayn, taasi aniga igu aamina. Sidoo kale waxaan idin xaqiijinayaa in qofna uusan awoodin inuu taabto ama uu dhaawaco biyaha Masar. ما حدش يقدر يمس مية مصر. waxaan arrimahaasi kala hadlay mas'uuliyiinta dowladda Suudaan iyo Itoobiya. Annaga waan fahmaynaa ayuu yiri Asiisi horumarka ay doonayso Itoobiya, laakiin haddii horumarkaasi uu dhaawacayo biyaheena ma ahan horumar. macnaheedu waxa weeye mid nolol ama geeri u ah shacabka Masaarida. في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى، ده حياة أو موت لشعب. arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu booqday dalkaasi Qatar, waxa uuna beeniyay in booqashadiisa ay ahayd mid uu maalgelin ugu doonayay biyo xireenka webiga Niilka ee dalkaasi. sidoo kale waxa uu tibaaxay biyo xireenkaasi inuu yahay mid ay ka dhalinayaan xoogga korontada. laakiin dhinaca kale dowladda Masar ayaa rumaysan biyo xireenka dalka Itoobiya inuu dhaawacayo nisbada ay ka hesho qulqulka webiga Niilka. dowladda Itoobiya ayaa gabagabaynaysa biyo xireenka webiga Niilka kaasoo keedinaya 74 bilyan cubic meters. xeeldheerayaasha Masaarida ayaa horay u muujiyay baqdin ah biyo xireenka dalka Itoobiya inuu keenayo khasaare soo gaara dhulkooda beeraha xilli ay tirada dadka Masaarida haatan ay kor u dhaafayso 100 milyan. bishii February ee sanadkani ayay xukuumadda waddankani sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ilaalinayso xuquuqda biyaha Masar ay ka hesho webiga Niilka. Xuseen Saxnuuni, VOA.